ما دريمي سيسبدل هذا تمشي عشان شوي بعدين هذه المرة تسبدل وين يعني رجالة كل جو أساس ولا همية ما هي موي helista xogta iyo fikirka wanaagsan ee ku jira shacabka kuma helaysid inaad fadhiso xafiiskaaga iyo goobta shaqada ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre oo ka duulaya aragtidaasi ayaa galabtay qaar kamid ah shacabka Muqdisho kula casriyay mid kamid ah maqaayadaha isugu yimaadaan shacabka reer Muqdisho ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa shacabka ula kulmay si caadi ah u weydiinayay talooyinka iyo tusaalooyinka ay u hayaan dawladda iyo sida warkaan isbedelka ay wado xukuumaddu maadaama ay dawladdu ku shaqaynayso aragtida wanaagsan ee shacabka Soomaaliyeed qabyaaladda la yareeyo dadka alla hadashii annagana waan ku dhex jireen saas oo baahan ya saas ma saas dulqaadu rabaa in la adkaysto rabaa in wixna khalda la yiraahdo walaalayaal dib hadda waqtigan mar rabna in waxa ugu horeeyo la qabanayo ay haato ilaalada sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed sax in Soomaalinimada iyo qabyaaladda iyo qabiilka ka wanaagsan ka gudbin waa ku maasantahay laakiin waxaan rabnaa cabashada shacabka xafiis la geeyo subax oo la tago adigu waxba tii karno waana la celiha cabashada oo shacabka ay qabaan oo ay tabanayaan xafiis ay tagaan subax oo cabashadooda ku sheegtaan ina aragteen moogiye ani xafiiskayga oo dawladii email وعدسدي إن لو صوت ديرو وحول بو عبكا ما شاء الله marka way taala subax walba waa la akhriyaa waa gabadhana idin sheegaysa ama caawa hadana TV-ga ka sheegi doonta caawa mar labaad TV-ga qaranka markii la soo diro waa iimaanay wiilashii gabdhaha ii keena waa akhrinayna aadi dadkii ku sugnaa maqaayadda ma aysan filaynin in galabta uu la shaahi doono ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ha yeeshee markay arkeen waxa ay dareemeen in iyagu ay leeyihiin dawladda iyagoo wajigooda laga dheehan karay farxad ku aadan in ra'iisul wasaaraha uu weydiiyo talooyinka lagu hogaaminayo dalka waa kan mid kamid ah dadkii uu galabta la casriyay ra'iisul wasaaruhu waxa sharaf iyo qiimo ah in maanta maqaayadii aan ka qaxweynaynay ra'iisul wasaaruhu oo noo yimaado oo shaah nala cabo arrin aan filayna ma aha ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya inta shacab maqaayad ku jira la yimaado la qaxweeyay ayadoon istaafkuna celin ayadoon cidna baarin ayadoon wax buuq ay dhawaato aan jirin si nabada ku qaxweynay shaahi cabnay ra'iisul wasaaraha la sheekaysanay si nabadana ku kaltan waa ilaahay mahadiye kani waa mid kamid ah waytarada ama dalab qaadayaasha maqaayadda oo tilmaamay inuu ku faraxsan yahay isla markaana ay la yaab ku noqotay inuu arkay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ka shahaya maqaayadda uu ku shaqeeyo aad iyo aad aan soo dhanan ra'iisul wasaaraha noo yimaado nala qadeeyo kubshiin nala cabo sheetara nala cuno wax walba nala isticmaalo aad iyo aad aan u faraxsanahay markii horeysay ra'iisul wasaaraha noo yimaadaba ee nala qaxweeyo noo sheekeeyo nala dhex socdaba oo annaga naga dhib mid ahaadaba ee asagoo dhex jira kubshiin aan siino waa markii nagu horeysay adana buluuska annaga iyo aariyadan dhinaca kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa kormeer kadis ah ku tagay wasaaradaha cadaaladda awqaafta iyo arrimaha diinta ee xukuumadda si ugu kuurgalo hanaanka ay u shaqeeyaan iyo inay u hoggaansameen xilliga shaqo ka bixisto ah 10 saac iyo baro galabnimo ama 4:00 galabnimo wasaaradda cadaaladda ayaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda u soo bandhigtay sharciyo diyaar ka ah kuwa ka mid noqonaya sharciyada xukuumaddu horgeynayso baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Nasr Bashiir Cali warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho